السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka laga yimaado in diinteena islaamku ay inagu boorisay cadayashada iyo in cadaygu inoo nadiifiyo ilkaha iyo afka waxa laga yaabaa inaanad ka warqabin in cadayashadu ay inoo leedahay faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan. daraasado dhowaan laga sameeyay dalka Taiwan ayaa lagu sheegay in qof kasta qofka uu ka cadayasho badan yahay uu ka caafimaad wanaagsan yahay. ururin caafimaad oo laga sameeyay dalka Taiwan waxa lagu sheegay in dadka xog ururintan lagu sameeyay boqolkiiba 24 ka mid ay ahaayeen kuwa si habboon oo nidaamsan u cadayda maalin kasta, halka boqolkiiba 16 ay ahaayeen kuwa marka ay xasuustaan un cadayda. Daraasadu waxay sheegtay in labadan qolada cadayga joogtaysa ay ka caafimaad badatay kuwa markay xasuustaan un cadayga sameeya. waxa daraasadu ay sheegtay in cadaygu uu ka hortago xanuuno badan oo ay ka mid yihiin xanuunada ku dhaca wadnaha, xanuunka faaliga, xididada ku furma maskaxda dhiigga. waxa xusid mudan in nabigeennii Maxamed alayhi salaatu wasalaam ay geeridu u timid isagoo cadayga afka ku haya.